السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سو dhawaada saaxiibada qiimaha badan ee ku xiran channelkani walaalaha family oo mar kale iyo muuqaal cusub muuqaalkeena maanta waxa idin soo jeedinaya anigoo Muuse waxaynu kaga hadli doonaa muuqaalkani gooskooska koobaad ee xalqada 61 mar labaad ayaan ku soo dhaweynayaa fadlan daawade haddii ay tahay markii ugu horeysay ee aad soo boqoto channelkani walaalaha family fadlan subscribe saar channelka sidoo kale muuqaalkana like saar aad baad u maasantay inta ka bacdi aynu guda galno xalqaynta gooskooska koobaad ee xalqada 61 haddaba saaxiibada qiimaha badan haddii aynu guda galno oo inta haddii aynu kaga gudubno aynu bilaabano gooskooskani falanqayntiisa ugu horeynta waxaynu arkaynaa islaantiisa FG lagu magacaabi jiray oo hadlaysa dhahaysana dabcan waxay la hadlay odaygii Axmed Yilmaas lagu magacaabi jiray kana dhahaysa caruurtan agtooda farxad ayaan ku haystaa fadlan ii dhaaf aan agtooda ku noolaade kana bax guriga ayaa ay ka dhahaysa islaantaasi oo sida aynu hore u soo xusnay waxay la hadlaysaa odaygii lagu magacaabi jiray Axmed Yilmaas xalqadii dabcan tan ka horeysay 60aad ee la daawaday habeenkii xalay ahaana ay isku dayeen in ay sumeeyaan islaantaan lagu magacaabo Safki haddaba marka labaadna waxa hadlaysa oo muuqaalka labaad ku arkaynaa gabadhii lagu magacaabi jiray ama islaantii Safki ahayd haysana ma soo kacday wiilkayga Cumar ee quruxda badnaayo markaas kadibna waxa hadlaysa gabadhii lagu magacaabi jiray Aasiya oo odhanaysa subax wanaagsan Cumar kadib waxaynu arkaynaa islaantii lagu magacaabi jiray Shinguul oo dhahaysa kana odhanaysa islaantii ay jaarka ahaayeen Orhaan ayaa casho igu yeeray iyadoo weliba aad u faraxsan oo aad moodo inay hadda tahayba dabcan gabadh u socota shukaansi kale aadna runtii way faraxsanayd iyadoo sideen hore u soo xusnayba dhahaysa Shinguul Orhaan ayaa igu yeeray macnihii casho ayuu igu ballamiyay ninkii Orhaan lagu magacaabi jiray ayaa ka wadaa markaas kadib muuqaalka ku xiga waanu ku arkaynaa ninkii Doorug lagu magacaabi jiray oo ay la hadlayso gabadhii Aasiya lagu magacaabi jiray kana odhanayso ereygaasi oo ah macudurdaar ayaa ay noogu noqotay si aad annaga nagu soo booqato hadda kadib isaguna waxa uu dhihi doonaa haa waa runta haddaba ereygaasi ay odhatay gabadhan lagu magacaabo Aasiye ilaa hadda waxa ay ula jeedo ereygaasi runtii ma hayno insha Allah muuqaalada ku xiga dabcan muuqaalkani ayaa idinku soo faalin doonaa oo idinku sharxi doonaa markaas kadib waxaynu arkaynaa gabadhii Shinguul ama islaantii Shinguul lagu magacaabi jiray ee hadda dhow u faraxsanayd oo arkaysa dabcan muuqaalka labaad aynu ku arkayno oo dhahaysa Safki ayaa soo laabatay ama Marwo Safki ayaa la soo laabatay iyadoo oo weliba qoslaysa iyadna kadib marka intaasi dhamaato muuqaalka ku xiga waxaynu arkaynaa islaantii Zuuzeen lagu magacaabi jiray oo dhahaysa ereygani runtii waxaa la yaabay dadkii dhammaan meesha joogay oo dhan waxayna dhahaysaa iyadoo oo ay joogaan dhammaan dadkii sida islaantii Safki lagu magacaabi jiray Shinguul dabcan ninkii Oljaan lagu magacaabi jiray sidoo kale gabadhii yareed ABK Aasiye waxayna odhanaysaa Cumar aniga ayaa dhalay runtii dadkaanina arrinkani ayay u la yaabi doonaan oo ama kaba ayuu ku noqon doonaa kadib waxaa la tusayaa macallin Buraak oo hadlaya oo dhahaya Safki waxaan u geeyay wiilkeedii dabcan arrinkaasina waxa uu malaha ka wada ayaan u maleynaynaa oo filaynaa Marwo Safki waxaanu u geynay ninkii lagu magacaabi jiray Axmed Yilmaas iyadoo sidoo kale si fiican waxa aynu idinku faahfaahin doonaa muuqaalada ku xiga muuqaalkani sidoo kale gooskooskani waxa ku jira oo aynu arkaynaa qaybaha dambe gooskooskani in ninkii lagu magacaabi jiray Oljaan oo dabcan ay joogaan iskuulka oo uu dhahayo hal mar Cumar aabihi wax kale ma raacinayo dabcan hadalkaasi buu dhahayaa Cumar aabihi ilaa iyo hadda waxa uu uga jeedo lama fahmin sababtoo ah hadal kali haata buu yiri oo ah Cumar aabihi sababtoo ah waxaan u maleynaynaa in uu ogaaday in uu Axmed Yilmaas yahay Cumar aabihi oo uu la socdo akhbaarta dhan marka uu sidaas dhahayana waxa la jooga ninkii Doorug lagu magacaabi jiray iyo weliba dabcan dad kale oo fara badan kadib si kadis ah waxa uu hadlayaa ninkii lagu magacaabi jiray Doorug waxaana uu dhahayaa hal ayaan hayaa halkaasi waxa uu yahay dabcan in aynu baadhno DNA sidaan filayo waa taqaanaan DNA macni dhiiggiisa in aynu ogaano kadib haddii ay labada dhiig isku mid noqdaan waa uu dhalay Axmed Yilmaas ninkaani lagu magacaabo Cumar sidaas ayaa uu ka wadaa ninkaani Doorug lagu magacaabo runtii halkaasina ma aha hal runtii aad u malaynayso inuu fuli doono laakiinse waynu eegnaa
bal sida ay wax noqdaan. haddaba goosgoosku runtii intaas ayay kusoo idlaanaya. arrinka kale waxa uu yahay ninkii Cumar lagu magacaabi jiray haddii uu ogaado in uu dhalay ninkani lagu magacaabo Axmed Yilmaz muxuu samayn doonaa? sidoo kale miyuu nici doonaa islaantani Safgii lagu magacaabo ee uu hadda jecel yahay, dalbatayna kana dalbatay inay la noolaato oo ay kula noolaato goobtaani ay hadda ku nool yihiin ama xeradigagoodani hadda ay ku nool yihiin? runtii u malayn maayo in xalqada soo socota arrinkani fashilmayso, sababtoo ah waa arrin sir ah. balse muuqaalada ku xiga muuqaalkani ayaa aynu si faahfaahsan uga hadli doonaa arrinkaasi oo muuqaal ayaan kasoo samayn doonaa. haddaba daawadayaal, arrinkan idinku darayo ayaa waxa uu yahay runtii maalmihii u dambeeyey ama xalaqaadkii u dambeeyey musalsalkani waxa uu ahaa xalaqaad runtii ratingkiisu aad isaga hooseeyo. dabcan aanuusan usii hooseyn balse iska dhexdhexaada, balse sidii la rabay ee uu weligiiba ahaan jiray waxa uu noqday xalqadani xalay waa xalqada 6aad oo ratingkiisu waxa uu kor u dhaafayaa ama uu dabcan gaarayaa 7.05 oo waxa uu sameeyey kor u kac ka ballaadhan kii uu sameynayay xalaqaadkii hore oo dabcan iskuma badhawaa xalqadan iyo xalaqaadkii ka horeeyay. sidii la rabayna hadda ayaa ay u faraxsan yihiin Kardashian oo xataa waxaad arki kartaa inay Instagramyada, Twitterada soo dhigdhigayaan iyaga oo faraxsan oo ratingkooga ku faraxsan. haddaba waxaan arkaynay dad naga soo weydiinaya commentiga muuqaalkii u dambeeyay ee xalqada 6aad falanqaynteedii. waan idinka soo jawaabnay oo waxaan idinku soo darnay muuqaalkani oo waxa uu kor u dhaafayaa ayaan hore idinku sheegnay 7.05 waana kor u kac aad u ballaadhan marka loo eego xalaqaadkii ka horeeyay oo dabcan waxa uu sameynayaa sidii looga bartay hadda ka hor. runtii dadkuna aad ay uga soo laabanayaan imika oo ay ugu soo laabanayaan daawashadiisii hadda ka hor intii uu ku jiray fasaxa ay ku maqnaayeen maalmahooga fasaxa ay ku jireen jarayaashu. balse xalaqaadkii u horeeyay 3 xalqadood u horeeyay 2 xalqadood u horeeyay iyagu waxay ahaayeen xalaqaad iska normal ah, balse xalqadani hadda dabcan tan 3aadi waxay noqotay xalqad aad iyo aad u macaan lana fiirsado ratingkeeguna uu gaaro 7.05. xalqadii tan ka horeysay haddii u eegno ilaa meelaha 5 ayaa uu ratingkeegu hayaa filayaa. haddii aan qaldanahayna dhanka commentiga dabcan nagula wadaag. aad iyo aad ayaan idinkaga mahadcelinaynaa muuqaalkeena maanta daawashadiisa. waana ku faraxsannahay sidaad noogu xidhan tihiin eed mar walba u daawataan muuqaalada aynu soo dhigno barteeda YouTube-ka ee Walaalaha Family. waa inoo muuqaalkani muuqaalka xiga. waan idin salaamaynaa. waa anigoo Muusa waxaan idinkaga tagayaa salaanta islaamka. assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh.